reer awdal hadday samri jireen hadday wax isweydiin jireen oo oran jireen aynu xishoonno oo nabadgelyada ilaalino oo midnimada Soomaaliland ilaalino maanta reer awdal way tashanayaan haddii laga tashado war annagu waanu tashanay taasaana ku xidhan tahay war ma doorateen si kala yeeshaan hadda si kala yeeshaan anagana talaabadeedu waa noo diyaarsantay 2010 doorashadii dhacay dalka ka dhacday udub iyo kulmiye ay ku tirsamayeen daahir reyaal wixii lagu riday ma ahayn xisbinimo laakiin dadku xisbinimo way haysteen reernimo ay hayd anagu waxaanu aaminsanahay maanta inaanu kursiga ku helayno reernimo inagoo isku duuban Somaliland ama cid gaar ah yeelan ama la kala yeelan haddii la wada talaabo qaadi waayo waa la kala tashan doonaa beelihii bariga iyo galbeedka beel baa tagtay beeshii kale galbeedka hadhay beesha galbeedka kursiga haddii aan juqojuqaynta iyo faragelinta aan laga daynin waxa weeye beesha kale way baxaysaayadna qaar ka mid ah aqoon-yahanka dhalinyarada iyo waxgaradka kala duwan ee magaalada Boorama oo maalmihii la soo dhaafay kulamo kala duwan uga socday gudaha magaalada ayaa maanta halkani oo hotel Reis ku qabtay kulan warbaahineed kulankaasi oo ay kaga hadlayeen loolanka shirgudoonka golaha wakiilada oo xiisadiisu taagneyd maalmihii la soo dhaafay waxayna dhalinyarada aqoon-yahanka iyo siyaasiyiinta kala duwan fariimo kala duwan u direen cid kasta oo reer awdal u diidan helitaanka kursigaasi waxaan isugu nimid hotel Reis dhalinyarada kala duwan qaybada kala duwan ee gobolka awdal muddo uu noo socday kulamo gaar ah inaan maanta ka soo saarno go'aan cad xaaladda ka taagan dalka oo ugu horeeyo shirgudoonka loo tartamayo golaha wakiilada Somaliland waxaan halkan ku caddaynaa oo bayaan cad ka soo saaraynaa inaan marnaba aanan aqbalayn wixii dimuqraadiyad iyo cod loogu kala helayo in gargoorta la geliyo waxaan taageero buuxa u haynaa shirgudoonka golaha wakiilada inamada u tartamaya ee gobolka awdal matala waxaan fariin u gudbinaynaa cid kastoo khusayso cid kastoo ku tacalluqda cid kastoo fargelin ku haysa hawshaas inay ka taxadirto xaaladda taagan maanta iyadoo la arkayo haddii laga joogi waayo inay xaalad labaad ka iman doonto Somaliland waxa loo dhaqaaqay in la yiraahdo xisbiyo iyo cod baa la isku muqoonaya maanta in laga dhigo xaalad kale aqbalay mayno rag waxa jira siyaasiyiin oo ku dhawaaqaya ereyaan loo qalmin waxaan maqlayn in lahaa dirkuma wuxuu dhashaa maanta awdal cod rabto xil dalkan saami qaybsi ay xaaladiisu taagneed 13 xildhibaan ee gobolka awdal waxay ku midaysan yihiin inay u codeeyaan gudoomiyaha shirgudoonka oo siiyaan qof raawada waxaan leeyahay Somaliland ama cid gaar ah yeelan ama la kala yeelan haddii la wada talaabo qaadi waayo waa la kala tashan doonaa waxaan ku soo gabagaynay hadalkayga iyadoo la iga dambeeyo war Somaliland hoos loo eego waxaan la qabaa oon la aragtiyahay aqoon-yahanka iyo siyaasiyiinta gobolka ee dooda ku saabsan in shirgudoonka golaha wakiilada loo daayo cidda ku tartamaysa shalay toole gudoomiyaha golaha wakiilada madaxweynaha qaranka gudoomiyaha golaha guurtida xeerlaaliyaha qaranka taliyaha ciidanka waxa fadhiya beel kaliyaad Somaliland dhismaheegii inagoon ku noqonin waxa lagu heshiiyey qodobadii 1991kii 15 May lagu heshiiyey magaalada Burco ee 17 qodob ahaa waxa kamid ahay in si siman oo cadaalad loo qaybsado mansabiyada dalka reer awdal iyagoo ixtiraamaya qadiyadaha dalka waxa weeyaan 2010kii looga helay doorasho cod hal qof iyo hal cod maanta waxaan aaminsanahay golaha wakiilada reer awdal inay tartami karaan soo bixi karaan matali karaan haddii la doortana ay xaq u leeyihiin ayna yihiin meelihii reer awdal ka caban jireen waxa anigoo ka wakiila dhalinyarta iga dambaysa waxaan cod dheer iyo cod gaabanba ku sheeganaa masiirka reer awdal waxa uu marka horeba ahaa saami qaybsigii reer awdal ka cabanayeen ee marka horeba xildhibaanada 13 ay ku yaraayeen maanta in loogu daro la yiraahdo shirgudoonka uma tartami kartaan waxay meel fog gaarsiinaysaa qadiyadda Soomaaliland reer awdal hadday samri jireen hadday wax isweydiin jireen oo oran jireen aynu xishoonno oo nabadgelyada ilaalino oo midnimada Soomaaliland ilaalino maanta reer awdal way tashanayaan haddii laga tashado haddii shirgudoonka ay u tartami waayaan oo ay noqon waayaan shirgudoonka tartankiisa laga hor joogsado
oo la yidhaaho hadallada xanaftan maqlayna ee reeraha qaar ay weliba ka soo baxaya leeyihiin uma tartami kartaan iyo dir bayna isku nahay ma dir ma waxaan noqonnaa marka wax shirgudoonka golaha wakiilada ay reer awdal tartamayaan ma noqonnaa dirku goormuu bilowday waar adeer Soomaaliland baynu ahayn reeraynu nahay reer walbana wixiisa halkaas ka goosanaya annagu waxaan aaminsanahay annagoo 13 ka xildhibaan ee gobolkana baaq halkan uga dirana cid walba oo gobolkan ka tartamaysa inay taageeraan shirgudoonkaas cid maanta inooga xaq leh oo Soomaaliland jirta ma jirto haddii shalay toole waxaan dhageysanay siyaasiyiin ka hadlayo leh madaxweyne ku xigeen baad leediin waar adeer madaxweynihii dalka gudoomiyihii maxkamadda sare gudoomiyihii taliyihii ciidanka qaranka garyaqaankii guud ayay jilib yar hoos oo wasiirka maaliyadda iyo jilib hoos oo beesha dhaxaa haysaa adeer madaxweyne ku xigeenku deegada buursi iyo gobolka awdo jilib hoos u kay waxaan aaminsanahay haddii meesha la wada leeyahay waar waan tartamaynaa cidna hor joogsan kartaana ma jirto waxaan ku soo gabagabeynayaa oon halkan baaq uga dirayaa xildhibaanada gobolka awda ka soo baxa ee 13 waxaan kula dardaarmayaa shalay toolayna ogeyn gudoomiye ku xigeenka xildhibaanadii ka hordimi ee ka codeeyeen ogeyn maantana raggii iyo qayb kamid ah waan arkaynaa iyagoo saxaafadda ka hadlaya oo le ma geyno war waxaan aaminsanahay aduu haddaad laangaab tahay ood maangaab tahay annagu waan geynaa gudoomiyaha iyo meel ka sareysan geynaa gudoomiyaha iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka waan isku darsanaynaa waxaan ku soo gabagabeynayaa ururada siyaasiga ee dalkan cod ka raba ee ku kaambeyn gareynaya reer awdal gudoomiyaha ma geeyaan waxaad ogaataan sanduuqii uu iman doonaa reer awdal waad hor iman doontaan waad iman doontaan maalinaad cod reer awdal weydiisanaysaan maanta waxaad dhigataan baan laydinku xisaabtamaya aad iyo aad baad u mahadsan leenahay kursigaasi wuxuu ka mid yahay waxyaabihii aan tirsanaynay oo weliba aan qaybna ka ahayn intaa iyo in ka badan baa sii maqan waxaan filaynay annagu dee waxaa la yidhi nin tegey intaa daba socoto ninka jooga hayntiisa ka wanaagsan waxaan filaynay in kursigaa maanta lagu taageero dadka reer awdal xildhibaanada reer awdal ee hanka yeesha u tartamaya habase ahaatee hadday noqotay reer awdal kursigaa ma fadhiisan karaan oo ma geydaan hadday noqotay waxay noqonaysaa inaynu dib ugu noqonno wax wada lahaashihi aynu wada lahayn waayo saynu noqon mayso inaynu wax wada leenahay waxaan xasuusannaa 2010 doorashadii dhacday dalka ka dhacday udub iyo kulmiye ay ku tartamayeen daahir rayaalo wixii lagu riday ma ahayn xisbinimo laakiin dadku xisbinimo way haysteen reernimo ay hayd annagu waxaanu aaminsanahay maanta inaanu kursigaa ku helayno reernimo inagoo isku duuban 13 xildhibaan leenahay waxaan leenahay qofkii ka leexda kursigaa ee codkiisa meel kala mariya taariikhda xusi doonta lagana hadhi maayo bar madoobana ku oleyso waxa weeyaan wuxuu noqonayaa qof ka takoran ummadda waxaan leenahay kursigaasi waa kursi ay xaq u leeyihiin maanta inay reer awdal helaan dadka arabsiya ilaa iyo dega lawyacado waa dad ay xaq u leeyihiin inay helaan kursiga oo waliba aan aaminsanahay inta ay inka badan inay maqan yihiin haddii la leeyahay dalka la xajecel laga qabo beelaha loo qaybsado waar wixii ugu badnaa idinka haya dalka intii ugu badnayd idinka haya xililka ugu badnaa boqolkiiba 90% baad haysaan haddaad la xajecel qabtaan siidaa kuraastaad haysaan maxaa kursigan hadba kii reer awdal jaanis u helan maxaa idinku rakibay idinka oo u aragtaan caqabad inay ku yihiin reer awdal caqabad ku yihiin dalkii qarannimada ay ku yihiin waxa la reer awdal waa dadkii dalkan dhisay laakiin ma aanay helin wixii ay ka gayeen ma helin inta 30 sanaba waxay ku soo wadeen waxa weeyaan waa iyaga dulmanaa dulan ay iyagu qaateen bay intaaba ku soo wadeen laga bilaabo maanta laakiin noqon mayso sidii lagu soo waday in lagu soo wado waxay noqonaysaa sidaad u wadaan waxyo si ka daran in lagu wado kursigaas jeedaa kursi kasta oo soo banaanaada waanu u tartamaynaa waanu qaadanaynaa qofka reer awdal ah ee ka leexda codkana meel kala mariyana waxaanu leenahay annaga nama matashid naga mid ma tihid qof kastoo ka soo horjeeda taasaanu adkaynaynaa runtiina kulamadu way sii socon doonaan waxaan leenahay raggaa tartamaya garabkiinana waa idin garab taagannahay wax walba waan idinku garab taagannahay hankiina waad sii waday baaq dheer u jeedinaynaa waa golaha wakiilada maanta waxa weeye Soomaaliland waqti adag bay maraysaa meel adag bay maraysaa god culus bay ku dhacday moogti godka culusna waxa weeye cid ka saari lahayd maanta waxa weeye waxaan filayaa waa reer awdal waxa weeyaan way geeyaan kursiga shirgudoonka baarlamaanka inay maanta hogaamiyaan away ragga ku hanjabayay reer awdal ma geydaan waxaan leenahay waan geynaa haddii maxay heedaan kursiga aanu heli weyno oo maxay heedaanay beeshii kursiga lahayd way iska tagtay runta fiican rubar isku sheegaya beelihii bariga iyo galbeedka beel baa tagtay beeshii kale galbeedka hadhay beesha galbeedka kursiga haddii aan joqojoqaynta iyo faragelinta aan laga deynin waxa weeye beesha kale way baxaysaayadna waxa weeye waxaan baaq dheer u jeedinaynaa waxa weeye waa golaha baarlamaanka 13 xildhibaan ee gobolka awdal iyo kuwa kale ku jiraba waxaan leenahay maanta waa maalinteedii maanta waa maalintii reer awdal ay lahaayeen
waxa weeye Soomaaliland reer wadal balka soo gaarsiiyay shirgudoonkuna waxaan qabnaa maanta haddaan kursiga aan qaadano inaan maantana haddana Soomaaliland tii la wada lahaa aan u dhisi karno waxaan xoojinayaa oo run oo dhab laga sheegayaa in maanta ishiigu ugu muhiimsan ee ugu culus yahay shirgudoonka golaha wakiilada shirgudoonka golaha wakiilada waxay khusaysaa xildhibaanada golaha fadhiya reer kasto yihiinba idinka codayn doona institutionka iyo dimuqraadiyaddu hadday dhab idinka tahay waxa ku hadashaan ku doodaan xukuumadda maanta jirta ku dhaliishan aqlabiyadiinu hadday dhab idinka tahay maantay taagantahay gacantiina ku jirta hadda ka codaysaan idinkaana dhab idinka ahayn hadda u codaysaanna wax wada lahaanshaha iyo sii jiritaanka Soomaaliland baa qayb weyn ka tiin wax badan ka tarasaan inta dabadeedna niman badan oo hadlaya oo runtii Hargeysa ku hadloon meel kale ku hadlo oo wax ma garata oo maxasa oo kuwa aan waxba loo dirana reerkay doonaan ka soo jeedaan bari iyo galbeedba waxa leeyahay warnimo yahow ree awdal ma hadlaan way tashadaan ma qayliyaan oo ma cabaadaan way tashadaan maalintay tala gaadhaanna kama noqdaan war annagu waanu tashanay taasaana ku xidhan tahay war ma doorateen si kala yeeshaan haddaa si kala yeeshaan anagana talaabadeedu waa noo diyaarsanta waxaanu yeelano dhabina waa noo diyaarsan wax hadal iyo cabaadina annaga diyaaruma yihin waxa naga dhabo naga runo naga lilaahiya miya aragtay intaas oo qoyahan oo awdal meel wada taagan war waa la tashaday waa loo tashaday de maalinta cabaadina annagu maanta baaqi weyn soo gaarsiinay inta dabadeedna de midbaayo riixriixyo dadko wax xukuumadda maanta taagan iyo ninka hogaamiyaba war waxba dadka ha gugujinina bareera siyaasaddu waa bareer وعبد الله طاهر وعس تي في caalamiga saab magaalada Boorama